السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر كانالك في فور سماء ما أنتوا حرواينا إذا لو هذا موضوع كسابسان سيدا سيدا قصيلة أضوحوا أقرن كرتو أنتوا بدن وحل سوي ديا واحد سؤالها أبو بدن أبا سيدان وبوبسين كرا أقرسكا سيدان يعني واحد بدن وأقرن كرا سيدان ما عرفت يعني حواريه أقرسك أنقرب قاعد كرا marka waxaan isku dayaa in dhowr habab aan idin sheego oo aad xawaaraha aqriska aad kor ugu qaadi karto sidoo kale waxaan rabaa inaan idin la wadaago yani faa'iidada ay leedahay mise faa'iidada darrada ay leedahay in xawaaraha يعني حوارها أقرص إنها كرقاته صابته وحنا إسكسر ميسد ما وينك كلا وقتها وحنا وحنا كفائدة مسوي وح كم فائدة سد مركب قدرت أنت أنا نقلين هبك عاد حوارها أقرص أذكر وقاعد كرته وحس كده أنا كلا وذاقو دور فائدة أو حوار أقرص كأولي يدور فائدة درو أو حوار أقرص كأولي مركب كور مرنا بالفائدة ده يعني حوارها إن حوارها أقرص كتقرقاته بدك ولا وحيدها إن حوارها أقرص كتقرقاته واحد كفائدة إن أد يعني وقت جاء أد بقانسو أو وقت كوبان أد وحن كوا قرصو كدبنا أد هيستو وقت أد وح كلو قبصت يعني وقت جاء جنا دقالة هيستو وهذا ما أنت يعني صدق سيها وحن واقرصو وقت بدن أد ما ركتي أد كيت سنكرتا وقت بدن أد مالك كرتا وقت بدن كوسو هراي مرك فائدة أز وحيد تأجو الرسو وقت جاء إن أد ما ركت كيت ستي مثل لبعض بس فائدة لبعض وحيد إن أد وح بدن أقرصو يكون صورة قشينا وح بدن أقرصو تسألهن إن ما أنتي وأح هيستا وش ساعة هيستا شنتا ساعة هذا حوارها أخرسك وكر سياسية واحد ودا إن وحيابا بدن أخرسه أو دور قرار إن أخرسه مركز حوارها أخرس أذكر سيادة لو متبا إن وقت جاء دقاليسته أو وقت بدن يكون سهرة إن وح بدن إن أخرسه يكون صورة قشة لبدأ فائدة لهذا فائدة درada ay leedahay in xawaaraha kor akhriska aad kor u qaado ayaa waxay tahay mid ugu horeyso waxa laga yaabaa in aad wax badan ka boodo sidoo kale fahamku uu maaragta kii kugu noqdo dib kugu noqdo oo wax badan aadan ka fahmin laga yaabaa mise yani xog badan oo aadan qaadan sababtoo markaad qoraalka aad si boobsiis aad u akhrinayso wax badan aad ka kala tagaysaa marka xogta aad sida qodada dheer u fahmi karto waa iska yaraanaysa oo sida maaragta fahamka qodada dheer oo aan casharkan mise xogtan aad ka qaadan karto mise qoraalkan aad akhrinaysa ka qaadan karto way yaraanaysa faa'iido darrada kale oo ay leedahay waxay tahay waad ku daalaysaa oo adiga dhan waxaad dareemaysaa yacni madaxaasi kuu qarxayo haddaad maanta dhan aad si dadaala maagto wax u aqri faa'iido darrada saddexaad oo ayadana ay leedahay waxay tahay kuma raaxaysanaysid oo inta badan markaad wax akhrinayso haddaadan si degan u akhrisan tartiib aadan maaragtay si degan aadan u akhrin oo aad bobsid u akhriso yacni dhadhanka mise yacni waa bilaa raaxo ala degdega kugu jira marka faa'iido darradeeduna waa taasaa hadda waad ogaatay faa'iido darrada iyo faa'iidada akhriska uu leedahay yani markaad aday kugu xirantay inaad go'aansato inaad xawaaraha kor u qaado iyo inaadan go'aansan kadib aanu imaado yani hababka aad xawaarahaaga kor ugu qaadi karto dad u baahan tahay inaad xawaarahaaga kor u qaado weli u sii baahan tahay habka koowaad waxay tahay markaad rabto inaad xawaarahaaga akhriska aad kor u qaado in aad isku daydo inaad iska kala yareyso yani hadalka maskaxdaada ka dhex yeeray oo inta badan markaad wax aqrinayso maskaxdaad ka dhex aqrinaysaa laakiin isku day inaad hadalkaas meel dhigto oo markaad wax aqrinayso indhaha bis aad ka fiirisid aad akhriska saas ku wadadood indhahaaga yani la raac adoo yani indhaha bis waxa ka aqrinaya yani inaadan ereyadaas madaxaada aadan uga dhex dhawaaqin sababtoo intaad ereyadaas madaxa ka dhex dhawaaqayso erey kastaba maskaxdaadaad moogtahay ka dhex dhahaysaa markaas waqtigay kaa qaadanaysaa sidoo kale wadada labaad ayaa waxay tahay inaad isku daydo inaad markiiba isha ku dhufato 3 erey oo isku xigto mise 4 erey oo isku xigto oo haddaad hal erey u fiiriso dabcan xawaaraha akhriska ma siyaasanay laakiin inaad hal mar 4 erey isku fiiriso yani hal mar ama aad jumlada dhan aad wada fiiriso midda saddexaad oo akhriska xawaaraha akhriska aad ku siyaadin karta ayaa waxay tahay in aad ujeedo lahaato waxaan ka wadaa markaa ciwaanka aragto ciwaankaas waxa qoraalka ka hooseeya yani wuxuu jawaab u yahay ciwaankaas ma ogtahay ciwaankii aragtay inta jawaabtaas waa inaad dhex raadiso yani inta jawaabtaas aad ka helayso waxa kale waa inaad ka boodo oo ujeedadaada waa inay noqoto jawaabtaas aad usoo dhexele baaragraaf walba hawga ilaa dhex bartanka hal mar saas isha la raac ilaa meesha ugu dambaysa ka gudub inta aad jawaabta aad raadinaysid mise aad ka helayso yani ujeedka waxa aad rabto aad raadinaysid sidoo kale qodobka afraad oo xawaaraha akhriska aad ku siyaadin kartaa waxay tahay
in aad yeelato hadaf inaad yeelato yacni inaad tiraahdo intaasaan aqrinayaa kadibna aad waqtiyeeyo aad samaysto aad tiraahdo intaasoo beejaan aqrina intaasoo daqiiqo aan ku aqrina markaas maadaama aad haysato waqti maadaama sidoo kale aad ku go-an yihiin waxa aad aqrinayso waxaa kugu jirayo riixida kugu jirayso inaad maaragta si dhaqsi aad u aqriso way kuu suurtagelaysaa qodobka shanaad oo aqriska xawaaraha aqriska aad ku siyaadi kartaa xitaa in qalin mise fartaada aasas ula raacdid yacni waxaad aqrinaysid oo markastood fartaasas ula raacdo waa mar walbo ay kuu sahlanaato inaad ereyo badan hal mar aad isku qabato yacni kadib tiro sadoo farta ula raacaya aad maaragta aqriskayna aad sii wado midda lixaad oo aqriskaad aad ku hormarin karto yacni xawaaraha aqriska ku siyaadin kartaa waxay tahay in marka koowaad aad noqoto qof wax badan aqriyo oo markastaad noqoto qof wax badan aqriyo oo markastoo aad practice ay taas kuu noqoto markasta aad practice samayso markasta waxaana kuu fududaadaan markasta waxaana kuu fududaan markasta xawaaraha kuu siyaad yacni noqo qof inta badan wax aqriyo oo dadka xawaarahooda aqriska u siyaasan waa dadka inta badan wax aqriyo noloshooda yacni dhaqangalkaas mise baraatikaas noloshooda siiyey inta toddobaad oo xawaaraha aqriska aad ku siyaadin karta ayaa waxay tahay inaad noqoto qof marka koowaad ereyo badan yaqaan haddaadan ereyo badan aqoon oo luuqad kugu cusub aad wax ku aqrinayso mase luuqadaada si fiican oo aqoon aad wax kugu aqrinayso way kugu adkaanaysaa in aad xawaaraha aqriska siyaad sababtoo ah kumanaan malaayiin boqolaal eray oo aadan aqoona ka hor imaanaysa marka inaad ereyo badan aad taqaano oo ereyo badan maaragta ah haysato waxay kaa caawinaysaa inaad aqriskaaga aad siyaadisid ereyo badanne ma ahan markaan ku dhahay ereyo badan baro ereyo badan hormar inaad liis badan oo ereyo inta qoratid aad xifdisad yacni ereyadan aa xifdisa mase ahaa baratay laga yaabo qoraalkaad aqrinaysa inaadan ka dhexelin mase buugga aqrinayso laakiin si guud inaa ereyadaada hormariso oo haddaad qof aqris ku cusub yahay taa markaad wax aqrinayso ereyga kugu cusuba aragto inaad madaxa ku qabato maalin kalena asagoo kale inta kaa hor imaado aysan noqon inuu kaa hor imaado yani mase kugu adkaado adoon micnihiisa aadan fahmin maaragta ay kugu noqoto marka isku day inaa ereyahaada siyaadiso ereyahaaga waxaa ku siyaadi kartaan waxay tahay sidaan soo sheegay aqriska badan inaad samayso marka toddobadaas qodob waa toddobada qodob aad xawaaraha aqris ku siyaadin karto sidoo kale waa kuusoo sheegay faa'iidada mise faa'iida darada ee xawaaraha aqriska yacni ay xawaara aqriska leedahay marka xawaaraha aqriska aad siyaadiso yacni faa'iida darada ay leedahay aday markaas kugu xiran tahay inaad rabayso inaad wax badan aqriso iyo inaad wax yar aqriso aad wax ka faa'iiday aniguna midaan taageersanaha ma taageersani mar kasta in aad aqriskaaga xawaarihiisa aad siyaadiso marar badan way ku anfacaysaa oo markaad hadda tusaale ardayaaba tahaba imtixaanaad rabtaa inaad maaragta gasho hadday waxyaabaha kuu yaalo aad tahay inaad aqriso ay saaid u badan yihiin markaasoo kale inaad xawaarahaaga aqrisku inuu sareeyo way ku anfacaysaa oo hal maraa waxaas u rogrogaysaa yacni ishaad marmarinaysa yani markaas way kuu fududaanaysaa laakiin haddaad maanta haysato buugga inaad aqriso buug caadi adoo aa soo gadatay inaad iskaga raaxaysataa yacni buugga waxaad arkaysaa waxyaabo badanoo lagu soo celcelshay yacni jumlooyin badanoo lagu soo celcelshay buugta waa ka dhex arkaysaa yacni waxaa arkaysaa qoraaga asoo isku dayaya inuu kuu sharaxo yacni hal dood inuu kaa dhaadhiciyo waxaa arkaysaa isagoo maaragtay dhowr maaragtay research badan uu sameeyey yacni sheekooyin badan yacni intaas keliya wuxuu u sameynaya waxay tahay keliya inuu doodas adiga kaa dhaadhacsho ayuu maaragta waxyaabo badan oo sheekooyin badan oo isku midmida mise cilmi baaris badan oo isku midmid oo meesha kugu soo tixa waxyaabahaas ma tahay inaad aqriso way fiican tahay mararka qaar inaad aqriso markii kale oo degdeg kugu jirana yacni muhiim ah laakiin inaad aniga midaan taageersana waxay tahay haddaa buug haysato inaad iskaga raaxaysato erey iyo erey yani erey u akhrisato waxaasoo dhan haddii buuggaas uusan ahayn buug muhiim saas u ah uusan ahayn mise aad ku caajisan tahay macquul muhiimaanina waqti iskaga dhumayso muhiimadda waxay tahay inaad kaasas uga boodo maaragta baaragraf walba meesha maaragta qaybta ugu horeyso mawduuca ugu horeysa inta ka fiirisid ka akhrisid kadibna waxa ka dambeeya ala baaragrafka waxa ugu horeeyo ku saabsan yahay yani ala laynka ugu horeeya mise laynka labaad waxaasoo qoraaga ku sheega wixii ka dambeeya alla waa iska sharaxaad waa ka boodi karta marka intaas ramaantii in idin la wadaago waa ku mahadsan tahay daawashada muuqaalka iyo sidoo kale ku xirnaashaha kanaalka Afifa Warsan. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.